kiska murugsaniyo sharciga murantiraya cadaaladda meel marshiyo nabaar booliska kamida mataanaha nabadgelyada baraha kiska murugsaniyo sharciga murantiraya cadaaladda meel marshiyo nabaar booliska kamida السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونعكسنا خيارتها وذا نقدي حني سايميل البوضافة عالم كي كجوبتان كسود وذا وركي بولس كدولة ديجان كسومالي ذا ورك وحيني ودي أراها نيجو هذا كسارح من القضاء بدو دور كورونا وحكم ذا إلى أن أنت النظافة يبلع دم مملك مجال ذا تشجع والكدق لو قدقي يشيل نورية يا كان داعي مجال ذا تشجع إذا كادم بكورتك يا قعنتها كسود جديد كل الدوان ولا بسوا قطي شدال شرعي درا وتاي داوديال qodobbadan iyo qodobo kale oo dhameystiran ba waxaad kaga bogan doontaan xilli tibinteena wareed markale saragti maqal wanaagsan qodobka warkeena oo horeeyana waxa kamid ah ilaalinta nadaafadda iyo bilicda maamulka magaalada Jigjiga oo halkudhig looga dhigay injineer Nuuriya ayaa ka qabsoomay magaalada Jigjiga komishinka booliska dawladda deegaanka Soomaalida oo kaashanaya maamulka magaalada Jigjiga ayaa bilaabay olole nadaafadeed komishineerka komishinka booliska dawladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Xasan iyo komishineerka xigeenka komishinka booliska Major General Sakariya Cabdi Khaliif oo ciidamada booliska isku dhafka uga qayb qaadanaya ololaha nadaafadeed ee bilicda magaalada Jigjiga ayaa halkaasi hadallo dhiirigelin uga soo jeediyay ciidanka inay sidii u ilaaliyaan sugidda amniga ay u dhowraan ugana qayb qaataan ilaalinta bilicda iyo nadaafadda magaalada iyo goobaha ay ku nool yihiin sida aan nabadgelyada soo kaashano ayaan nadaafadda soo kaashanaa waayo wax kasta iskaashi ayaa waxa weeyaan guusha lagu gaaraa saaka saad aragtaan shacabkii magaalada Jigjiga dhammaan hay'adaha kala duwanaa ee maamulka iyo hay'adaha nabadgelyada oo iskaashanaya ayaa say nabadgelyada soo kaashanayeen nadaafadana soo kaashanayaan markaste waxaan leenahay shacabkanaga ku dadaala nadaafadda si aanu xanuun iyo khatar kale ayna u dhicin cid kaste shakhsi kaste qoys kaste nadaafadiisa waa inuu kor u qaado shakhsi ahaantiisa kaga bilaabo cid kaste waxa weeyaan aaga ay ku sugan tahay ay nadaafiso tusaale ahaan markaan leenahay nabadgelyada ka shaqeynaynaa caasimaddiina waan ka shaqeynaynaa aan leenahay meelaha qashin kale waxba lagu qarin karaa meelaha qashin kale waxba lagu qarin in lagu qariyo ay halis tahay si aan marka meel waxa lagu qarinin waa in magaaladeenu ay muraayad noqoto oo nadaafadeeda ka shaqeyno ammaankeeda ka shaqeyno marka shacabka deegaanka waxaan u baaqayaa gaar ahaan caasimadda Jigjiga in aan nadaafadda kor u qaadno nabadgelyadeena kor u qaadno hay'adaheena ammaanka iyo shacabku ay isku dubnaadaan ciidanka dambi koortaga ayaa gacanta ku soo dhigay gaadiid kala duwan oo lagu soo qabtay shidaal sharci darro ah faalada warkaasna waxa inoo haya wariye Maxamed Yuusuf ilaalinta iyo xakameynta shidaalka sharci darrada ah ee laga dhoofiyo deegaanka waa waajibaadka koowaad ee ciidanka dambi koortaga ciidanka booliska deegaanka oo ku guuleystay inay dabar gooyaan shakhsiyaadka caadisti ka ganacsiga shidaalka sharci darrada maadaama shidaalku ay dawladdu lacag kab ah u sameeyso si ay baabuurta ka dhex shaqeeya guud ahaan dalka iyo deegaankaba u helaan shidaal qiimo jaban muddooyinkii dambe waxaa ku soo batay deegaanka gaar ahaan magaalada Jigjiga gaadiid isugu jira kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar oo qaado shidaal sharci darro ah si ay u gaarsiiyaan magaalooyinka kala ah Boorame iyo Wajaalo oo ah magaalooyinka u dhow magaalada Jigjiga isla markaana xad kala leh deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga ciidanka booliska deegaanka iyo laamaha kale ammaanka oo kaashanaya shacabka deegaanka ayaa wada dadaalo lagu ciribtirayo
shakhsiyaadka ka ganacsada shidaalka sharci darrada ee ka gudba xuduudda deegaanka soomaalida uu la leeyahay somalilan. haddaba ciidanka dambi ka hortaga ayaa gacanta ku soo dhigay 6 baabuur oo kala ah 2 bas xaajiyad iyo cagaf iyaduna ka mid ahayd gaadiidka lagu helay dhoofinta shidaalka. hab cusub oo khiyaamo ah ayay bilaabeen maadaama lala fahmay nidaamkii hore ee ahaa inay jargaamo ku qaadaan shidaalka. xiladan cusub ee shidaalka lagu dhoofiyey ayaa ah nidaam cajiib ah, taas oo ah in ay baabuurta u sameeyaan taangiyo uu shidaalka ku qaado oo cusub oo aan ahayn taangiga shidaalka uu ka qaato gaariga. ciidanka booliska ayaa ku guuleystay in ay soo qabtaan 210 jirkaan iyo 41 foosto oo isugu jiro baasiin iyo nafto. haddaba si aan wax badan uga faahno waxaa noo faahfaahinaya gaashaanle dhexe Nabhani Cabdi Cumar oo ah madaxa gaadiidka ee komishinka booliska. shidaalkan sidiisaba dawladda ayaa soo gada, dawladduna kabid bay magaranaysaa ayay ku samaysaa. sidaa darteed marka shacabku ma soo iibsadaan, dawladda soo iibsa shidaalka. marka shacabku horta inay saa ogaadaan way muhiimad. dawladda ayaa kabta oo soo iibisa. marka shacabkeena waxaan leenahay deegaanka shidaalkan waxaan u ilaalinayno dawladda soo iibisa. oo dabagalka waxaan ugu hayno waa taas weeye. hadda ka soo qaad shidaalka waddanka ka baxayay qaabka hadda ooga baxo marka inii sharaxo. kow gaarigan waa xaajiyad ha ahaadee ayadoo haddana sharci darre waddanka soo gashay. waxay sameynayaan in magaranaysaa ay magaranaysaa ay u sameeyaan 2 taangi oo kuwiisii oo kii originalka ah oo ku soo baxay oo ahayn. kow taangigiisii originalka ah waa ka horta taangigiisii originalka ah waa kaas kiisii originalka ah waa kaas. muxuu sameystaa marka ninkani oo shidaalka dalka kaga saaraa? shidaalka wuxuu dalka kaga saaraa kow taangigaas waa ka taangigaas iyo kan labadaas midna baasiin buu ku qaadaa midna naaftu ku qaataa. labada taangi saasi soo kor saaran yihiin. marka gaarigan noocaas ku shaqaystaa in badan markaan dabagal ku haynay waan ku gaarnay dabagalkii. kan baseeta ma aha, kuwa kale inay tusi doonana way jiraan oo magaranaysa ayagana aan ku soo qabanay oo nooc tabtanuun ah. kuwa waaweyn oo daba soconana way jiraan oo iyaguna sidan oo kale qaabkan oo kala sameeya. shidaalka marka waddanka saas kaga baxaa. shidaalkana deegaanka ayaa iska leh, dawladduna deegaanka u soo iibisay. kabid baa loo sameeyaa. dabagalka aanu ku haynayna waa taas ahayd aan ku gaarnay. qaybo kale tan oo hadda aan daba soconana way jiraan oo gaadiid waaweyn oo iyaguna noocaas sameeyay. taliyaha booliska degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle gaashaanle dhexe Qaali Cabdikariin ayaa sheegtay in xaaladda nabadgelyo ee degmadu ay tahay mid aad u wanaagsan. haddaan ka warbixiyo amniga degmada waa amniga degmada 100% wuu fiican yahay. hadda wax dhiba ma jiraan, degmada sideeda kale amnigeedu u fiican yahay. hadda halkan waxaa jooga ciidankii new booliska, ciidankii militariga, ciidankii maleeshiyada. hay'adaha amniga meeshan joogane si fiican ayay iskugu xiran yihiin oo shaqadooda waajibaadkooda shaqada ay hay'ad walba u gudataa. annaga ka boolis ahaan hadda degmada kaleeto aan dhilaamistigu isku xiran yahay. odayaasha, dhalinyarada, hooyooyinka si fiican ay u shaqeeyaan iyaga naftigooda. maadaama degmada xaduud ayagoo ku taalo hadday ururkii dhalinyarada iyo hooyooyinkii cid walba ay shaqeynayeen ciidanka kaliya waxa ma qaban karaan. ayaga naftigooda doorka ay ku leeyihiin degmada qayb weyn ayay ka qaataan bulshada naftigeeda. kaalintan ka geysan waa la og yahay oo marka hadda alqoshaasho kale meeshan lagu dirirayay muxuu ay xaduudanada kale ay soo galeen waad aragteenoo si adag ayaa loola diriray. markii dambeetana waxaanba tusnay bulshada Soomaalida naftigeeda waxaan tusnay al-shabaab inta la iska celin karo. waad aragteenoo bulshadii way ku dhiiranaadeen oo hadda gobolka Hiiraan oo kaleeto way iska celinayaan. annagoo ka dawladdeeganka Soomaalida Itoobiya ay nooga daysanayaan wakaas hadda iska celiyo al-shabaab iska dulqaaday. marka taa waxaan leenahay 100% oo ku guureysanay alqoshash la dirirkooda. aan dhilaamistigoo kale budubuduna iskugu xiran yihiin, qabalayaasho kaleeto budubuduna iskugu xiray, dhalinyarada kaleeto qayb ayaan u howlgelinaa. oo marka aan dhilaamistigu isku xiran yahay. aan dhilaamistiga awalba ayadoo shaqada laga shaqeynay isku xirayeen. haddana maadaama xaaladaha nabadgelyo dartood haddana dardargelin cusub aan u sameynay si fiican aan dhilaamistigu u shaqeeyaan. hadda nabadda guud ahaan annagana faa'iido weyn u tahay, bulshadana faa'iido u tahay. bulshada hadday amni haysanin waxa ma wataraysa nolosha bini'aadanka amni ku xiranbo. midda koowaad waa amniga weeyaan. bulshada naftigeeda taa way ka dhaadhacsan tahay oo maadaama sareynta sharciga oo ka hirgashay annaga xagga naga ka hirgashay saa darteed bulshada naftigeeda amniga ayagaaba kaaga horeeyabo
oo dee hay'adaha nabadgelyo aad bay oola shaqeeyaan hadda in yar hadday xataa ruux magaalada xataa intuu soo galo baadiye ka imaado kaleeto suuq wax ka dhex gadanayn gabadha way kula soo hadlaysaa nin aan garan waaya halkan taagana kaalay ku dhihi saacadda waa soo ordaysaa qof muwaadin ah oo qabalayaasha ka imaaday oo magaalada ka dhex ganacsanay intuu yahay markii la xaqiijiyo dee saacadda waa la sii deynayaa bulshada waxaan farayaa maadaama hadda ay ku baraarugsan yihiin hay'adaha ammaanka ay ku baraarugsan yihiin taa darteed mid ay hadda ay sii intay sii xoojiyaan aan ku baraarujinayaa booliska magaalada Addis Ababa ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 3 qof oo lagu helay in ka badan 3,000 oo biro been abuur ah faalada warkaasna waxay noo soo diyaariyay wariye Cabdinaasir Seeraar shakhsiyaadkani oo laga soo qabtay xaafadda Yeka oo ah meel gaar ah oo loo yaqaan barxadda qurbaha sida laga soo xigtay booliska Addis Ababa xubnaha ka tirsan waaxda booliska xaafadda Yeka ee saldhigga booliska degmada Lamberto ayaa u xil saaran shaqada joogtada ah ee ka hortagga dambiyada waxayna wadaan hubinta baarista 3 qof booliska Addis Ababa ayaa sheegay in 3 xubnood ay ku qabteen lacag dhan 3,200 oo bir oo been abuur ah waxayna boolisku sheegeen in shakhsiyaadkan kala duwan u isticmaalayeen lacagahan been abuurka waxayna boolisku sheegeen in shakhsiyaadkan kala duwan u isticmaalayeen lacagahan been abuurka inay ku qaldaan bulshada qaybaheeda kala duwan saraakiisha booliska ayaa shacabka faray inay ka feejinaadaan lacagahan been abuurka cidda ay ku arkaan boolisku soo wargeliyaan waa tahay daawadayaal warkaan soo tabinayna waa naga intaa waxay la socodsiinay aniga Ahmed Qosaar Axmed aniga asxaabtayga la qayb qaadatay xilibteena wareer dhamaantii isku duban waxaan uga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh mar kale ay akhyaari ku soo dhawaada barnaamijkeennii isku xidhka booliska iyo bulshada dabcan oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono waraysi aan la yeelan doono komishineerka komishinka booliska ee gobolka Dhaawa gaashaanla sare Guuleed Diini Fetin dabcan oo ka waraysan doono xaaladda guud ee gobolka Dhaawa iyo degmooyinkiisa xaaladda nabadgelyo ta xuduudaha ta maciishada iyo ta ay bulshadaasi ku sugan tahay komishineer ku soo dhawaad barnaamijka isku xidhka booliska oo toddobaadkan dabcan adigu martiyaad noogu tahay inaad nooga warrato xaaladda guud ee gobolka Dhaawa iyo bulshada qaybaheeda kala duwan qaab nololeedkooda iyo xuduudaha iyo xaaladda nabadgelyo waqti xadirka uu ku sugan yahay ku soo dhawaad barnaamijka waana muhiim mataqaanaa in la ogaado gobolka iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo waxyaalaha ka jiro dhan waxa weeye gobolka Dhaawa waa gobolka gobolada ugu da'da yar sida la socotaanba waa gobolka gobolada ugu da'da yar weeyo oo xagga maaragtay gobolada kaleeto facilitiyada kaleeto ee xagga wadooyinka iyo waxyaalo badan oo macalneed sida network-ka iyo uu ku yiri oo malaha ma dhigi karo laakiin uu ku yiri waxaa jirta gobolka wuxuu la xuduudeeyay gobolka Oromiya iyo dalka Kenya iyo gobolka Liban saddexaas ayuu dhaxayaa marka waxa weeye waa gobol aad u ballaaran oo dhul aad u qurux badan ku yaala oo carraacas ah oo aad u qurux badan oo xoolo dhaqatada ku fiican oo dad xoolo dhaqata ah oo aad mataqaan u wanaagsan ay degan yihiin weeye waxa weeye marka aan 4 degmo ayuu ka kooban yahay gobolka degmada Hudeed iyo degmada Mubaarak degmada Qadaaduma iyo degmada Mooyaale weeyaan marka degmooyinkaas iyo qabiilay aad fara badan oo magaalooyin waaweyn ah ayuu gobolku ka kooban yahay marka gobolka xaaladiisa nabadgelyadu hadda aad bay u fiican tahay waxa degan gobolka Dhaawa bulsho aad u fiican oo nabadgelyadeeda ayadu gacanta ku haysa heegan baan hay heegankan goormaan galnay maba dhaweyn heeganka waxaan gal xitaa gobolada kaleeto waxay heegan galeen markii hadda al-shabaab ay soo gashay bay heegan galeen laakiin annagu marka hore bana sii dul joogeen heeganka waxaan galnay annagu 8 bilood ka hor annagu heeganka aan galnay baan ku jiraaba booliska degmooyinku iyo booliska muxuu ahaa iyo maleeshiyada gobolka goob kasta ogaanshahan ku joognaa ogaansho maxay tahay bulshadii baa nala shaqaynaysa gobolka network-ka ku yar meelaha mataqaanaa network-ki malaha gobolada meelo badan oo network leen ba jirta haddana laakiin network-kiga Kenya waan isticmaalnaa network-kiga Ethiopia waan isticmaalnaa labadaba mobilka kugu shaqaynaya Kenya wixii ka soo galaya waa lagu soo sheegayaa waxa aad wax loogu mahadiyaa bulshada meeshaas hal caagad ah nin caagad wata
ayaa qablaha watiitil ka soo baxay Kenya gudaheeda caagad 3 litir qaado weyn caagad nin caagad wata ka soo baxay watiitil soo socda leeyahay dhanka kusoo meel kusoo galaya kusoo galaya ninka caagad watay laba nin mooto wata oo dhashay midna qaadi ma ka soo baxay midna weerar ka baxay ninkii caagad watay oo jawaan ay ugu jirto caagadii saliid bay noqotay عقد سريد بن وقت نينك عقد وتحسن واي بلشده وين waxa shaqeynaysa anagu waan dul tagnay aragnay laakiin bulshadu maxay tahay bulsho waxa weeyaan boolisku tiradiisa ha yaraadeen laakiin nin kasta oo booliska deegaanka soo booliska gobolka daawa xafatiisa ma tago waa diyaar qorigiisu haysta waxa jaadada qorigaaga wadan oo aan diyaar ahaan cadawga aad ka gacan horeyn asaa ka gacan horeynay hadaa aragtay nin shaqada la geliyo ama tag tilid ama iska seexda waa nin meel oo seexda haysto nabadgelyada helaysa intuu yiri kalsooni qaba oo dhihi waan seexanayaayo xaafadaydan tagayaayo waan soo noqonayaa nin yiri waa nin heli karaya intuu seexdo in soo tooso yimaad laakiin nin ku xisaabtama haya nafta marka hore first naftaada badbaadi ka bacdi bulshada badbaadi oo bulshada u dhisan tahay oo asaasan tahay marka booliska saas ku asaasan yahay gobolku mar walbana waa heegan tiradiisa iyo tayadiisana waa 100% weeyaan malihi maanta waxba la soo dhaxmari karaya waxaan ku joognaa ogaansho meel walba waa ognahay ogahan la soconaa gobol maleeshiyada badan oo iska shanaa jirta oo aad u xoog badan meel walba ma taqaana waan ka soo joognaa gobolka hay'adaha nabadgelyada sida hogaanka nabadgelyada gobolka kaleeto ma taqaana nin nabadgelyada aad u yaqaan shaqada oo aan iska shano oo in badan ka soo shaqeynaya shaqadaas oo garanaya hawshaas ayaa hawsh ayada na taageero na garabna siiya shaqada marka nabadgelyada gobolka daawo 100% way fiican tahay caqabad laakiin way jirtaa gaaluun leeyado buundadii ayada ahayd way go'an tahay buundadii way go'an tahay mar hadday buundada go'an tahayna meel gobolkii laga aado iyo isku socodkii deegaanka Soomaalida iyo gobolka ayaa kala go'aya caqabada jirta waxa weeyaan waa intaas waxa weeyaan wadada laamiga ee Mooyaale ee soo gasha oo aan deegaankeena inaga waxba ka marinba jaamuq qabalaha leeyahay Mooyaale ku dhagan ayuu inaga afka sanka naga maraa dusheeda soo noo maraa inta kale gobolku wuxuu maraa wadada waxay martaa Oromiya laakiin Soomaali ka soo qaada jirto inaga soo maraysa oo dhanka hudud ka soo gelisa dhanka degmada hudud bay ka soo gelinayaan intay xagga inaga soo mariyaan ama هلو يحكى سمر يان بيح سمر نيا هودد مكاسين دحمر نيا أنا وضع رأس كي مرنا يعني شفقة مركز تاس حشد بدن أيام رجستي سنة يهر وحن قبني لبا كون يسأل بقولك أيام قبني أنا عند كل هذا السنة كان أنت أورني مدة تضارب بلاد أنت أورنا هذا لا بقول يوحياله أنت كلا ترى ما سامع لا بقول يوحياله كيلوان هنا هذا وهذا محكمة مركي يقع لفرو محكمة يحرن محكمة مركي فرو أيام جوبي دولا مالين كستا حشدة ولا غبطة لكن ديان كين هذا مرن كذا ويريان ما دام يوجدين مرة بينا كتلا بغادينه وحيقول بدلين حق اللامية يأنك كلاتين نجمران مركو حي كين يا بهاش يا لقيه ديان كين سوالد معناها ولا كين يو لوجن عصنا يماه لكن ومرن بير هذه سبهاش marin bay haysan meelay marto hadda kor way mari jirtay laakiin markii laga talaabo qaaday ee bulshada horteeda aan ku gubnay ee aan media ka sheegnay ee aan ka talaabo qaadnay way dhamaatay waxay martay way naga wareegtay anaga meelo kale taa loo wareejiyay marka hadda daragadii isticmaal muxuu ahaa ka ganacsigeedii wuu yaraaday aad buu yaraaday hadda kadib sanadka soo socda waxaan rajaynayaa inuu xitaa هذا سنة كان تضرب سكوبرهن إلا 200 iyo wax baan helay 200 iyo waxyaalo kiilan qabanay oo nimba meel ka qabanay de 5 kiilo 10 kiilo 1 kiilo marka hadda waxay maraysaa 200 iyo 20 ee dhantaan marinaya oo kilogram oo ahayn ma jirto xashad gudihiisa lagu beero totally waa wax la keeno waa la soo qaadaa way gudubtaa waxay gudubtaa dhanka Kenya marka annaga dhaxdan annaga deegaankeena kuma beera iyada dhaxdeeda in lagu dhax beero wax suurta galayana ma aha xitaa jijiya nimid awaamirna waana la siiyay oo aan maqanaysaa inay
nabadgelyada sidii loo ilaaliyo iyo si kasii fiican oo aad loo dadaalo oo isxilqaan badan la sameeyo oo ka qaybgelinta bulshada aad loo badiyo oo cadow waxaa jirta nabadiidku waxay qorshaysteen inay hal ruux oo hal qof oo dowladyaanka dalkan u dhashay haddii ay helaan oo ay dilaan inuu nabadiidyada kale uu ka sharaf bato dee nabadiidkii dila hal qof oo u dhashay deegaanka soomaalida ama gabadh hurdada ka toosiyadee oo deegaanka soomaalida ama meel bambaha ku tuuro ama xabadda ka siiye ka naxiya wuxuu isleeyahay dee nin weyn oo mataqaana khatar oo geesi ah sababtoo ah deegaankeenna inay mar walba waxay kusoo qorshaystaan u fashilmaa marka dadaal badan bay geliyeen in ay deegaankeenna mataqaana ay intay yimaadaan ay waxuun ka sameeyaan waxuun inay ka sameeyaan dadaal badan bay xoogun bay geliyeen marka dadaalkoodii inuusan hirgelin annagana qorshan ka yeelannay inuusan hirgelin qorshan ka yeelannayo annaga ayagaa ka khibrad badan ayagu waa carruur yaro hadda la soo abaabulay oo hadda nin intuu meel madow wax uu sheegay uu soo diray weeye annagu laakiin sida nabaddiid sida loola diriro khibrad badan baan ka leenahay farsamaday marayaan iyo halkay marayaan iyo waxay qorsheynayaan iyo waddada ay rabaan inay maraan iyo wax dhan baan sii ognahayba marka qorshahooda qorshaan ka yeelannay mana imaan doonaan bulshaduna waa aware weeyaan 100% aware weeyaan sidee bulshadeenu inaga dhexdeena marka isku mashquulshay xun tahay laakiin markii uu kaga yimaado cadow extra dibadda kaga yimaado waxa weeyaan waa bulsho istifaac taqaano weeyaan waad ogyahay waa dhawad ka qaybgalka ay sameeyeen bulshada gobolka Afdheer oo kale ay wax ka sameeyeen hadda gobolkana waa la mid ah xagga dhaqankan waa iskaga midba gobolkan wax kasta oo uu iman kara aan isleeyahay waxaan hubaa wax kasta oo soo gala intaana anagu xabad aanan ku ridin inay bulshada ku ridayso ya waan hubaa sida awgeed waxa weeyaan nabadgelyadu gobolku 100% weeye ayaa la dhihi karaa in yar baan halkan uga faa'iideystaan doonayaa waxaa jirta mootooyin gobolka waxaa laga isticmaalaa haddii aan si cad kugu sheego qoyskii reer daawo ah hal mootuu leh waa qoys kasta hadda waa individual ma dhihi karo qof kasta xabad buu wata ma dhihi karo laakiin qoys aan xabad mooto lahayn ma jirto mootooyinkan waxay tagaan ilaa Kenya ilaa dal gudihiis way meel walba way maraan waxaan uga dilgayaa mootaleyda gobolka daawo dadka ayaga soo raacaya ee mootooda soo raacaya dhahaya ee daawo nageeye ama ceel waax ka soo qaado ama baanis ha ka soo qaado ama ha ka soo qaado Wajeer ama gobolada Kenya ha ka soo meel kasta oo ka soo qaado ee gobolka daawo nageeye dhahaya inay iska eegaan qof ay garanayaan meeshuu ka shaqeysto iyo midka uu yahay kaliya inay soo qaadaan waxa weeye mootooyinkaas halis badan bay mataqaana yay wajihi karaan ayaga naftooda laga yaabo intii dhexda lagu dilay in mooto laga qaato ayaga naftooda ha ilaashadaan horta kow marka labaadna dalkooda ha ilaashadaan nimaan dal lahayn haddaad maanta lacag qaadato lacagta meeshaad ku cunlaad baa loo baahan yahay kuwa xashada ka ganacsaday hadda ka hor mataqaana ayagana waa u digaynaa hadda ka horna waa u digayo digniinteeda way og yihiin oo hadda ka hor SRTV ma halkan baa uga digay hadda marka digniintu way og yihiin weesha ay wixii qurunkaad wadaan iska daaya sida leedin xukumi iyo maxkamadda sida leedin keen way ogtiin ka feejignaada la fiina ilaaliya dalka dad wax u tara noqda lacagta siyar hadda warsta u shaqaystaan ganacsataan way idin deeq gaadiidleyda soo qaadaysa xashada ee inta xag hoose loogu soo qariyo baabuurta efisarada ee mataqaana khaanadaha hoose sameysay ee xashada lagu soo qariyo annagu waan ognahay meesha wax ku soo qarisaan baabuurtiinana inaad weydaan oo carruur idin ka gaajooto ma doonayno waxa weeye gaarigii mar lagu qabto mar labaad hadii lagu qabto waxa weeyaan waan wareejinaynaa waa la wareegayaa ha ka joogaan ha ilaashadaan hantidooda ninka darawalka waxa waajib ku ah gaarigiisa waxa la saarayo inuu ogaado oo uu tiriyo war maxaa la saaraya bam baa la saaraya maxashad baa la saaraya darawalku waa inuu tiriyo waxa la saarayo horta darawalku waa inuu horta asaga naftiisa badbaadiyo haddaad hunguri kaliya daydaydo meel dawo baad ka dhici waxaa la rabaa inuu darawalku marka hore wuxuu qaadayo ninka baabuurka leh waxaa loo baahan yahay darawal xilkasa inuu hantiisa u dhibto
darawal xilkasa nin xilkasa hantidiisa ha u dhiibto oo dhihi karaya war waxaan liisoo dhiibay waa maxay waxaan liisoo dhiibay waa maxay muxuu yahay waxaan liisoo dhiibay muxuu yahay gaariga maxaa la soo qaadaya war kaartoonkan maxaa ku jirta jawaankan maxaa ku jira nin dhihi karaya oo ay isla xisaabtamaan ahaa ila ciqaabba ka dambayso hadhow haddii lagu qabto ciqaabaad maraysaa sooma halka hadhowt waa soo saaray ma soconaysa cid waxaa weeyaan inay ka digtoolaan bulshada baabuurka nin kale waa inuu baabuurkiisa horta nin xilkas u dhiibto ninka xilkaska loo dhiibana waajib kala siiyey keliya ha guto waa hagaag akhyaarta sharafta leh hawada sida tooska noogala socdo barnaamijkeennii toddobaadlaha isku xidhka booliska iyo bulshaduna intaa inoo jooga dabcan barnaamijka toddobaadkan waxaa martay ugu ahaa komishineerka komishinka booliska ee gobolka dhaawa gaashaana sare guuleed diini fetin oo dabcan nooga warramaya xaaladda guud ee gobolkaasi islamarkaana aan rajaynayo inaad ka qaadateen faham buuxa gobolkaasi qaab dhismeedkiisa iyo qaabka ay bulshada iyo boolisku wada shaqeeyaan barnaamijkan mid lamid inta ku gulmi doono dhammaan waxaan igu dhaafayaa sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu